ضد مشرحين مدحوينه dhexdhexaad ka sida magacoodu tilmaamayo waa siyaasiyiin Soomaaliyeed aqoon-yahano ah khibrad dheer leh wadanka muddo ka soo shaqeeyay aragtidooda siyaasiga ay dhexdhexaad tahay aaminsan in nabadgelyo wax walba lagu doono aan ogolayn dagaal iyo violence iyo in la isdilo iyo sareynta sharciga iyo dastuurka in lagu dhaqmo oo ay tahay wadada kaliya ilbaxnimada iyo xadaaradda leh mujtamacaan isu hayn kara mar haddii wixii ummaddu ku heshiisay la ixtiraamo sharcigii noo degsanaana lagu dhaqmo khilaafku waa yaraanaya laakiin haddii sharcigii lagu dhaqmi waayo ama se ay yimaadaan waxyaabo dadka ay siyaabo kala duwan u arkaan waxaa imaanaysa dadku inay qaybsamaan waxyaabaha ugu horreeya runtii aan rabno inaan ogaano sidii uu sheegay saaxiibkay dowladda hadda jirta waqtigeedu waa dhammaaday muddo xileedkeedii dastuuriga ahaa ayada iyo baarlamaankaba marka arrintaas inay dhacday muddo xileedkii dastuuriga ahaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo sii joogitaankeeda waxaa ka dhalanaya khilaaf oo aysan dadku isku soo u arkayn marka khilaafkaas hadduu baaho oo ballaarto waa waxa ka imaanaya waxyaabihii laga digayay iyo bulshadu inaysan kala furfuran oo khilaafkeed marka khilaaf kasta asalkiisa meel buu ka soo bilaabanaya waxaa la rabaa marka meeshuu ka soo bilaabanayo in la xalliyo si aysan u dhicinin dadku inuu iskhilaafo qaarba meel aado haddii dadku iskhilaafaan oo qaarba meel aado waxaa ka imanaysa inay ayaga ismaqli waayaan inay ayaga isdiriraan inay wixii aanu ilaashanaynay iyo wixii rabnay inaan gaarno la gaari waayo marka run ahaantii haddii xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanku muddo xileedkiisii dhacaysaan aaminsanay oo la isku wada raacsan yahay waxay u baahan tahay meeqiisii joogaya ma sanad ma 2 sano ma 10 sano ma 20 sano yani mas'uuliyadda dadka loo hayay amaanada ahayd open end ma noqon kartaa hal iska sii jooga haddii la isfahmo ma iska sii joogay 10 sano la isfahmi karaa marka waxay u baahan tahay saan islaana anaga heshiis siyaasadeed haddii xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo baarlamaankii uu xilligiisu dhacay waa inuu jiraa heshiis siyaasadeed oo xadida sii joogitaanka xukuumaddaas oo loo arko inay muddadaas sii wado hawlihii ay haysay doorashana la galo oo la garantii garay oo ama la sugo doorasho inay dhacdo marka runtii waxaa la rabaa inaanan ku mashquulin waxaana saxa waxaan sax maaha ciladii ma jirtaa ciladaas muxuu yahay xalkeed see loo xallin karaa muddo gaaban dabcan haddii doorasho la galo arrintaani waxaan rajaynaynaa inay soo afjaranto sababtaasaan marka waxau leenahay doorashadii lagu heshiiyey dadkuna sugayey iyo dimuqraadiyaddii 4 sanaba la isu dhiibayay oo hadba wixii suuragala lagu maareynayay haddii la waayo doorasho qof iyo coda doorasho dadban in la galo oo ay noqoto daruuri macnaha waxaa lagaga hortegayey inuu qof iska sii joogo ama madaxweyne iska sii joogo ama xukuumad iska sii joogto ayadoo qiil ka dhiganaysa waxyaaba fara badan qiil la heli karta marka runtii waxaan rabnaa baaqan waxa ugu horreeyo aanu soo saarnay waxa weeyaan uu ku salaysan yahay in heshiiskii 17 September dhuusamareeb lagu galay ee ahaa in doorasho xor oo xalaal ah oo la aqbali karo dalka ay ka dhacdo iyo waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa moodaa caqabadaha soo dhex galay marka waxaan dalbanaynaa ama soo jeedinaynaa in wixii lagu heshiiyey la dhaqan geliyo si wadanka looga baajiyo khilaaf hor leh isqabsi hor leh iyo in uu kala furfurmo wixii yaraa aan hadda haysanin marka waxaan ugu baaqaynaa run ahaantii gaar ahaan mas-uuliyiintii saxiixayaasha ka ahaa heshiiskii 17 September maamul goboleedyadii madaxweynaha hadda muddaxileedkiisii dhammaaday xukuumadda muddaxileedkeedii dhammaaday dhammaantood inay xil gaara iska saaraan in heshiiskaas la fuliyo oo ay doorasho xor oo xalaal ah oo wixii lagu heshiiyey ay dhacdo muddo gaaban waxaan kaloo weydiisanaynaa inay caqabado cusub aysan hordhigin wixii lagu heshiiyo doorashooyinka oo waxaan leenahay fadlan adinkoo tixgelinaya dareenka shacabka iyo baahida jirta iyo khatarta soo wajahan waa in si degdega arrintaas loo afjaraa oo doorashadii la saxiixaa waxaanu la soconnay in 17 September baydhabo 15 bishii hore iyo 16 guddi farsamo uu isugu yimiday oo qodobadii la isku haystay liir waxba lagaga heshiiyey inkastoo la soo bandhigin marka arrintaas waxaan leenahay gaar ahaan maamulka Puntland iyo Jubbaland waxaan ka codsanaynaa si xushmad leh inay arrintaas ay xilka qaataan oo goor walba iyo goob walba oo lagu go'aaminayo in doorasho degdeg la galo ay u diyaar garoobaan oo aysan xaggooda waxa caqabada ka imaanin
waxaan kaloo rabnaa si gaara inaan madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaadkiisa dhamaaday asagana aan idhaahno dadkan mas-uuliyaddiisii adaa hayay waxaan kaa codsanaynaa si degdega arrinta doorashada in loo dedejiyo oo ay u dhacdo. dabcan amnigu waa waxyaabaha aan ku taamayno oo waddankan haddii amni aan la helin nolol ma jirayso. marka waxaan rabnaa ammaanku inuu yahay waxyaabaha aasaasiga oo xil dhammaanteen uu naga saaran yahay inaanu ammaanka ilaashano. waxaan kaloo rabnaa ammaanku dabcan ciidamada ammaanka ayaa mas-uuliyadda koowaad iska leh, shacabkuna mas-uuliyadda labaad buu leeyahay, mas-uuliyiintuna xil baa ka saaran in ammaanka la ilaaliyo. waxaan kaloo jecelahay ama rabnaa runtii halkaas inaan ku kabo ciidamada xoogga dalka ah ama booliiska ama waxay rabaan ha ahaadeen waxay u dhaarteen dastuurka oo shacabku uu ku heshiiyey. marka waxaan rabnaa inaysan qayb ka noqonin khilaafka siyaasiga ah oo siyaasiyiinta dhex yaalla oo siyaasiyiintuna ay ka heshiin doonaan insha allahu tacaala oo aysan ku eedoomin shacabka ama loo arag ciidankii dadka iyo dalka in siyaasi gaara oo isagu si gaar u adeegsado asagoo caburinaya siyaasiyiintii wax kala dhexeeyeen ama la tartamayay iyo in shacabka lagu caburiyo ciidamada. labadaas arrimood waxaan leenahay runtii wanaaggeenna ku jira, horsocodkeenna ku jira, xasiloonidana ku jirta, khilaafka oo yaraadaa ku jirta. marka waxaan leenahay waa dhiirigelinayna. qodobka saddexaad waa sax, waa la qabaa dhammaanteen waa ku heshiinay haddii laa samaxa allah baan leenahay oo waxaan rajaynaynaa in arrintan inta la isugu yimaado maadaama la filayo usbuucan aakhirkiisa in la isu imaan doono rajaa hay jirto in wixii lagu heshiiyo doorashadii la aado ayaan rajaynaynaa. laakiin hadday dhacdo in la isfahmi waayo oo la yidhaahdo gogosha ha la ballaariyo saamilada siyaasadda ka soo qayb galeen waa inaysan koox gaara xaq u yeelan oo dhammaan mas-uuliyiinta musharaxiinta kale xisbiyada siyaasaddu ay xaq u yeeshaan inay iyaguna matalaad ku yeeshaan codna ku yeeshaan masiirka looga tashanayo waddankan iyo mustaqbalkiisa. dabcan qodobka u dambeeya labada qodob u dambeysa waxa way isku yara dhow yihiin oo runtii waxa weeyaan horta kudladda musharaxiinta madaxweyne inay xisbiyada qayb la noqoto oo ay wada hadlaan waxay markhaati u tahay in kudladda musharaxiinta madaxweyne ee dhexdhexaadka ah ay aaminsan yihiin xisbiyada iyo mabaadida xisbiga iyo waddanka mustaqbalkiisa inuu u gudbo xisbiyo badan. marka sidaa daraaddeed inaanu wada shaqayno ayaan diyaar u nahay. waxaan diyaar u nahay inaanu waddankan taladiisa cod ku yeelano. waxaan diyaar u nahay inaan gaarsiino waddankan inuu qof iyo cod la gaarsiiyo oo talada iyo go-aanka iyo masiirka dalka shacabka loo soo celiyo waktiga ay ku habboon tahay iyo goorta ay ku habboon tahay. marka waxaan leenahay xisbiyadu waan wada shaqayno, aan iskaashanno, aan wada shaqayno maadaama hadda kudladda dhexdhexaadka ah aanu nahayna oo annagu hadda aan musharaxiin madaxweyne aan nahay waxaan idinku casumaynaa inaad nala shaqaysaan oo aan runtii wada shaqayno oo codkiina aanu insha allahu tacaala aad ku soo biirisaan iyo dadaalkiina kudladda musharaxiinta madaxweyne dhexdhexaadka ah. annaguna waxaan ballan qaadayna waan aaminsannahay haddii ilaahay nagu guuleeyo inaanu hirgelinno nidaamka xisbiyada badan oo aanu gaarsiino dalka qof iyo cod sida ugu dhaqso badan oo haddii doorashadan ay dhacdo doorashada xigta 2024 haddii ilaahay la gaarsiiyo ay ku dhacdo doorasho qof iyo cod ah aanu gaarsiino aan ka wada shaqayno. waayo waxaan aqoonsanahay kaalinta xisbiyada, waxaan aqoonsanahay kaalinta dimuqraadiyadda, waxaan aqoonsanahay in shacabku ay ku yeeshaan go-aan qaadashada masiirka ummadda ay ku yeeshaan oo dadka ay rabaan ay doortaan oo si cadaalad u doortaan oo si xaqa u doortaan. marka arrintaas iyadana waxaan leeyahay soo dhawaad walaalayaal aan wada shaqayno. maanta annaga musharaxiina garabna siiya, berrina aanu garab idin siino oo dimuqraadiyadda aan dalka wada gaarsiino. waa mahadsantihiin.